السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا برنامج كينا ديريجرين النفط. وحنس ويدي محاوقف عن عدد لجو ديريجرين كلا. طبعا مركزوني سيدد إن ديريجريسيد هذا إيه كلمة دو سامين نرالد كوياشة إن أد كتير هدي. isbeddel dhinaca wanaagsan u jiidaya aad ku samaysid waxaad u baahan tahay in aad ka fikirtid waxa aad dadka ku oranaysid waxaad u baahan tahay inaad qaab xigmadaysan wax ugu sheegtid wadcu xigmatan wal mawcida hadalku wuxuu leeyahay darajooyin iyo qiimayaal kala duwan haddaba anigoo barnaamijkaasi ku yara fikiraya ayaa waxay igu soo dhacday gabay aan mar hore tiriyay oo runtii aad u qiimo badan dhiirigelin ah waxaan u doortay gabaygaas inaan maanta barnaamijkeena ka dhigano laakiin nasiib darro waxaa laga yaabaa innaga ka Soomaali ahaan gabayga waxaan ka aaminsanahay negative in markaynu gabay maqallo ay qalbadiina ku soo dhacdo in badan oo idin ka mid ah qabiil la caynayo qabiil la kicinayo qof shakhsiya oo la boonbooninayo loo propaganda gabay loogu akhrinayo mid lagu caynayo oo cirdigiisa iyo sharaftiisa meel looga dhacayo iyo meelo khaldan oo gabayga loo adeegsanayo dabcan in badan oo shucaradeena ka mid ah ayaa nasiib darro meel khaldan u adeegsaday gabayga laakiin aniga waan ka yara duwanahay shucaradaasi weligay gabaygayga umaanan isticmaalin ama kagamaanan hadlin qabiil iyo qabyaalad midna qof shakhsiyana weligayba umaanan gabiin maraan arrintaasi gabay ka tiriyey aad u dheer oo aan ku sharaxayay sida aan uga xumahay iyo waxa aysan ku wanaagsanin ayaa waxaan lahaa qaada gabayga anigoo yar baan qaari ku ahaa qamaanka maqlaysiyaana dhaafay dhowr qolo marse haddii qabiil lagu diro lagu diraalay qaayimada duuniya hadduu qadra kala siistay qasadkayga maaha aniga qiimo ima leh mar hadday noqotay gabaygii in lagu caytamo dadka lagu kiciyo dad laga iibsado oo wax macno darro ah oo been iyo propaganda loogu sameeyo haddii halka uu galay aniga wax qiimo ima sameeyo laakiin runtii gabaygu waa xigmad Ilaahay u bixiyo gabaygiyo murtidu waa waxaan dunya goyn karine waa hibayn gaari hesho gul la bixiyaaye gabayga iyo xigmadu waa waxaan dunya goyn karin dabcan gabaygu waa xigmad iyo gallad Ilaahay bixiyo waxayna ku xiran tahay meesha aad u adeegsatid iyo qofka Ilaahay uu siiyo aqliga iyo xigmadda ku jirta haddaba intaanan barnaamijkeedin ku dheerayn waxaan rabaa inaan idin la wadaago gabaygaasi ka bacdina barnaamijka qaybtiisa dambe ayaan ku sharaxi doonaa gabayga xigmadda ku jirta ujeedka aan ka leeyahay hadalka iyo macaanida uu gudbinayo iyo wixii u baahan in la fasiro intaba ku soo dhawaada barnaamijkeena mar labaad hoyaalayey 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 hoye war hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey gabayga wey ugu horaysaye waxse kuma tarte mansaday ku hergenisaye dadka maalin dhibiyo adduun way iska duufkaase dadka maalin dhibiyo adduun way iska duufkaase ninse dardaaran ku gala walaal dahaba weeyaane ninse dardaaran ku gala walaal dahaba weeyaane oo ruux wanaag kula dafliyo libinta daraya ana damaca inaad gaadhid baan kula dayaya ana damaca inaad gaadhid baan kula dayaya adduun dabaqadbo kala dhashiyo daa'imaad maleeha nina dereja kuma caymiyo gulis daba taale nina dereja kuma caymiyo gulis daba taale ha yeeshee dadaaliyo kartibay dad isku dhaafacne ha yeeshee dadaaliyo kartibay dad isku dhaafacne ninkastina dariiqu marab u duqay ku gadhaya
dadka ruuxa liitiyo ninkii doqoni waa moog dadka ruuxa liitiyo ninkii doqoni waa mooge nin hadduu salaadiyo digriga dahe ka ahaado goobaha dulaadiyo hadduu dedeeda sheekeeyo dantii mooge liitiyo hadduu doqon la saaxiibo hadduu deleeb la dheeliyo ciyaar derejeedii yeelo nasiibkii adduunyada diliyo daartii aakhirooye nasiibkii adduunyada diliyo daartii aakhirooye oo walaas daluun loo diro dowray waa horeeye waa ninuu dubigu joogo daahirkii tegay adduun dabaqad loo kala dhashiyo daa'imaad ma leh adduunku darajooyin loo kala dhasho ma leh yacni dabaqa waa darajo darajooyin loo kala dhasho ma jirto laakiin darajooyinka waa wax la gaadho waxaa laga yaabaa dadka qaar inay ka dhashaan bulsho ama reer ama qoys dabaqada hoose ku nool ama dadka dabaqada hoose lagu tiriya balse iyagu ay isgaarsiiyaan oo ay ka mid noqdaan bulshada dabaqada ama qaybaha ugu sarreeya ma aha meel ay u dhasheen laakiin waa meel ay iyagu isgaarsiiyeen dhanka kale waxaa laga yaabaa kuwa ka dhashay qoysas iyo bulsho nolol sare ku nool oo dabaqada sare lagu tiriyo inay ka mid noqdaan bulshada qaybahooda dabaqada hoose lagu tiriyo haddaba waxaan ogaanay inaysan jirin dabaqad loo dhasho laakiin darajada iyo dabaqada aad mujtamaca iyo adduunka ka gelaysid aad adigu isgaarsiin kartid qaybta kale ee gabayga ee ka mid ahayd adduun dabaqad loo kala dhashiyo daa'imaad male kelmadda daa'imaad daa'im wax noqonaya adduunyada ma jiraan caafimaadka dhalinyaranimada firaaqada dhammaan waxaas way wada lumi doonaan maalmuhu way wareegi doonaan waqtiguna wuu tegi doonaa caafimaadka dhalinyaranimada iyo firaaqaduna way lumi doonaan ama way dhammaan doonaan haddaba haddaynu ogaanay adduunku inuusan lahayn dabaqo iyo darajo loo kala dhasho waxa aynu maanta haysanana aysan ahaaneen wax daa'ima oo ay lumi doonaan soo ma mudna inaan ka faa'iidaysano waqtigeena oo aynu isku diyaarino sidaynu u noqon lahayn bulshada qaybahooda sare qaybta ugu dambaysa ee gabayga waxaan ku tilmaamayay qof nasiibkii adduunyada uu ku lahaa iyo daartii aakhiraba khasaareeyay sifaad aad u xunxun oo dhowr ah ayuu qofkaasu leeyahay waana sifaad laga yaabo in badan oo dhallinyaradeenna ka mid a in maanta laga helo waa qof programkiisa iyo waxa uu ka fikirayo ay tahay in uu ciyaar daawado ama deleb ciyaaro waxaa laga yaabaa kelmadda deleb inaydinaan si saxa u fahmin laakiin waxaa jiray intaan ka warqabo ciyaar dhaqameedada Soomaalida ama ciyaaraha gacanta laga ciyaaro wax la yiraahdo shax iyo wax la yiraahdo deleb ciyaarta shaxdu waxay ahaan jirtay ciyaar يعني حكمت كجرتو قاب مسكح iyo fariidnimo iyo xeeradna loo ciyaaro lagu kala badiyo halka ciyaarta dalabku ay iyadu ahayd mid aan xigmad badani ku jirin koobigeedina la keenay landooga shucarada Soomaalidu iyagoo markay gabeeya ayay lahaayeen shaxi waa ilduuf dalabna waa inuu ciyaaro yani shaxda waa la isku khiyaana waa wax la isku gaado waa wax lagu kala aqoon iyo khibrad iyo maskax badiyo laakiin dalabku isagu kaas maaha waa landoogan la tuurayo afar ba isoo baxday shan ba isoo baxay haddaba kelmadda deleb meel laha ka raadinin wax badan aysan waqti ka qaadan waxa loo jeedo oo laga hadlayo walandooga waxaan sheegnay qofkaasi khasaareeyay noloshiisa inuu yahay qof ciyaar landoo fadhi ku dirir iyo wax la mid ah ku mashquulsan haddii aad haddaba waxyaabahaasi ku mashquulsan tahay wada khaldan ayaad haysaa waxaana muhiim ah in aad ka tanaasushid inta aadan kuwa yeeloobin qayb ka mid ah gabayga waxaan ku sheegay nin waliba dariiqu maro duqay ku gaadha nin waliba wadada uu dhalinyaranimadiisa maro ee uu dhalinyaranimadiisa ku sugnaado ayuu waayeelnimadiisa iyo gabagabada noloshiisana ku gaadha waxaa laga yaabaa inaad maanta aragtid nin waayeel ah oo aan wax xigmad ah ku jirin ciyaal suuqnimo dhalinyaranimo liidnimo ka muuqato dabadeedna aad isweydiisid muxuu yahay qofkan waayeelka ee aan xigmad ku jirin oo wali dhalinyaranimada iyo ciyaal suuqnimada ka sii muuqato laakiin hal la yaabin noloshiisii hore ayuu qaabkan ahaa dabadeedna wadadiisii ayuu ku weynaaday wadadii uu hayay ee dhalinyaranimada iyo ciyaal suuqnimada ayuu ku waayay
xilligii ay ahayd in uu ka tanaasulo ciyaar suuqnimada iyo dhalinyaranimada uu ka baxo ayuusan ka bixinin dabadeedna maanta in lala yaabo ma uusan mudna waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo barnaamijka ma raba inaan waqti badan kaa qaato waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaan wada fahmnay gabaygaasi iyo xigmadda ku jirtay dhammaantiin inaan hadda wada fahmnay adduunka iyo darajooyinkiisa inaysan ahayn wax loo dhasho ay tahay wax la gaadho